xariifkan wuxuu hadiyad u keenayaa qoftiisa weliba iPhone isagoo soo gelinaya kartoonkan meeshaynu u saaraya markaas uu ku dhahay maanta maalinta guurkeena waxaan hadiyad aan kugu keenay baashaan markaas ay qoslaysaa waxaan ku dheesaa maxay tahay waxaan isagana wuxuu ugu jawaabayaa hadiyadan adiga kugu talagal markaas ay ku dheesaa ma chocolate ay keentay isagana wuxuu ku dhahayaa maya waa wax iska caadi markaas ay ku leedahay maanta maalinta guurkeena lacag miyadweedu wax kale igu soo gado markaa chocolate ay keenaysid mase lacagta baqiilaysa ay ku dheesaa balse wuxuu ku dhahayaa maya waa caadi laakiin baashaan aan kugu soo gaclado aan ku keenay weliba anigoo ka xishoonaya gacan faaruq inaan ku yimaado markaas markale wuxuu ku leedahay halkan waxaan kula joogaa 3 saacadood sidoo kale wuxuu sheegaysaa inay xirantahay labis aad iyo aad qaali ah waxay kale uu sheegaysaa inay soo martay perfume aad u caraf badan waxaana u wadan aysan goyn xitaa qiimahooda markaas waxay ku leedahay aniga waxaan gadan karaa chocolate aad iyo aad u fara badan markaad ay keenaysaa halkan chocolate maxay tahay markaas uu ku dhahay waa og inaad sameyn karto midaasi balse aniga mid aan kula soo jeclaaday markaas uu ku leedahay laakiin aniga waxaan u qalmaan leeyahay hadiyad aad iyo aad u qaali ah kadibna hadiyadii way ku soo tuuraysaa xariifka hadiyada kala furmaysa wuxuu ku dhahay isagana fiiri markaas sidaas uu fiiridana meesha waxa ku jira iPhone 17 Pro Max markaas haddana waxay ku leedahay waxaan aad keentay muxuu yahay markaas uu ku dhahay hadiyad dhabtay aan kugu soo talgalay adiga markaas soo bixisana way farxaysaa markaas wuxuu ku dhahay hadiyadan adiga kugu soo talgalay sababtoo aad qalanta waxyaabo aad iyo aad qaali ah markaas ayadana ku farxaysaa waxaan leedahay aad iyo aad iga farxaday midaas aad sameysay sidoo kale waxay raacinaysaa waxaan ogaanay inay keenayso telefoon waxay kale oo sheegaysaa waxyaabo maadada dhees clean ay ka ahayd prank aysan ka ahayn markaas ayadana wuxuu ku dhahay codkaaga uu isbedelay wuxuu isku bedelay mid farxad badan maxaa dhacay ayadana waxay ku dhaysaa may macaani kali waxaan kugu sameeyay prank iga raali noqo kadibna ninka kuma qanacsan waxay ku sameysay ayada waxayna wada caabayaan Coca-Cola-hooda ayada markaan aad ay u qeylinaysaa sidoo kale waxay muujinaysaa farxad aad iyo aad u fara badan markaas isku dayaysaa inay daarto waxayna ogaanaysaa inuu daarmin waxaan ku leedahay maxaa ku dhaca telefoonka ma daarmaayo markaas ay ku dhahay aniga ma aqaan waxaan maleynaa laakiin dabkiina uu ka dhacsan yahay ku dhahay isaga sidoo kale wuxuu raacanay inuu soo gaday Cabdilshideey markaas ay leedahay aniga tii keenaysa telefoonka soo gaday Cabdilshideeyaha isagana wuxuu ku dhahay la sababtoo aniga lacagna ma aanaysan aan telefoonka kugu soo gado markaas ay mar kale leedahay aniga ma xatii moodin aan raqiis waxaan uma baahnay iga cisho markaas ay ku dhahay beeb telefoonka uu fiican yahay kaliya wuxuu baahan laga bedelo batteriga markaas ay ku dhaysay dhigeysiiro aniga uma baahni telefoon cilisa inaan isticmaalo alla dumarkeena iyo waxyaabo qaali ah maxaa kala haysta gabar yaab ay leedahay markale wiilku waxa ku leedahay aniga telefoonka uma baahni iska cisho aniga uma baahni telefoonkan weyn ku celcelinaysa qoftu waxay bilaabaysaa ganfuurtaaka is xanaajis gadaal ay u laawanaysaa madaxayna ma muroojinaysaa xariifkan afku isku taagtaaga isin uu yaabin yahay qoftan wax ka qaldan iyo wax ku dhacayba markaas uu soo qabanaya wuxuu bilaabay telefoonka gaashiis inuu furo waxana soo dhacay Frank markale adan gabadhu ay yaabaysaa ninkan wax uu ku sameeyay Frankiga meesha uu ka soo bixiyay markaas uu ku dhahay adiga waxa tahay doqomad oo loser markaas waxay ku qalinaysaa Allah kani waa diamond wuxuu ku dhahay isagana ha waa diamond markaas adan markale waxa ku leedahay Allah iga raali noqo midaas mirwin aan kugu sameeyay tani waa aqliga isticmaalan kaliya gabdhaha wiilo is ilaali adiga sidoo kale xiraacinaysa waxa tahay aan kugu rabaa iga dhaaf waxyaabaha kale markaas uu ku dhahay tani waa tijaabada ugu dambeysay adiga aan kugu sameeyay balse adiga waad ku fashilantay waad ku dhacday deeminkiisna uu ku ceshanaya gabadhin way yaabaysaa waxayna isleedahay ninkani maxaa ka qaldan kadib ay istaagay wuxuu go'aansanaya inuu ka soo tago ayadana waxay ku qilinaysaa almiga tagaysa waxaan loo keenay rasiidkii waxaan la lacagta iska bixi qof yahay qoftii ayaa markaan iyadoo aan caadi ahayn xanaaqsan murugana dareemaysa isku dayaysa lacagta inay bixiso lacagtana $830 hadda qofta daanyarkii uu ka soo tagay wax ay sameeysan way la yaabantahay maxaad sameyn kartaa adiga